السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة موقال عصب رمضان مبارك دمانتينا ميل والبا دونيدا كجوجتان maanta waxaan idin wadaa cabitaankii ciida ka hor aad isku cayilin lahayd jirka kuu naaxinayo kuuna qurxinayo waxaa ka helaysaa nafaqooyin proteins sidoo kalena aad ayuu u kobcinayaa jirkaaga waa alaab aan inaba caadi ahayn cabitaankan haddii aad baratana insha Allah waad u bagi doontaa haddii aad caato dhibsatay cabitaanka sameyso isticmaal insha Allah halkan waxaa kusoo diyaarsaday qaando xulbad ah sidoo kale waxaa soo diyaarsaday 2 xabo moos ah iyo 5 xabo timir ah maasha Allah cabitaanka xulbada ah aad u cajiib u yahay xulbada waxay qani ku tahay proteins aad u fara badan sidoo kale fatty acid badan ayaa ku jira waxaa kale oo calcium ayaa ka helaysaa xulbada iyo mooskaba aad ay qani ugu yihiin iyo proteinska jirkaagana way nafaqeynayaan alaabtan haddii aad isticmaashid timirta waxay ka qayb qaadanaysaa lafaha inay koriso maasha Allah ee jirkana kuu qurxiso xulbada ayaa hadda iska dhaqaaya baaqul ayaa ku shubaya halka qaando alaabtan 3 saac ayaa meel dhigaysa ilaa ugu badnaan 4 saacadood ka badanna waa dhigi kartaa makiinada hadda sidaan xulbada ma ku shiidayso laakiin markii meel aad isku dhigtid qaraarna ma noqonayso sidoo kalena xulbada aad ay kuugu macaanaanaysaa cabitaan oo smoothie ah qurux badan ay meesha kaaga soo baxayo oo markii aad cabaysana ee nafta ku raaxaysanayso insha Allah had si fiican ayaa u dhaqaaya xulbada wasaq ay leedahay si fiican iskaga dhaq hadda markii aad soo dhaqay aad soo nadiifiyay xulbada aad nadiif ka soo dhigay waxaa ku shubayaa glass biyo ah kadibna 5 xabo timir ayaa ku daraaya meel ayaa isku dhigaya waa isku daboolaya insha Allah bishii barakeysneed ayaa naga sii dhamaanaysa ilaahay khayrkeedana siiyo kuwii loo dambi dhaafo naartan laga xureeyo Allah naga dhigo aamin ya rabbi alaabtan haddii aad isticmaashid insha Allah waa alaab cajiib ah aad u bagi doonto caafimaadkaagana sare u qaadi doonto insha Allah biidnillaahi kariim hadda waa daboolaya 3 saac kadib ayaa shiidanaynaa cabitaanka xulbada aadka u macaanka badan hadda waxaa soo qaatay makiinada loogu talagalay cabitaanka in lagu shiido danna xulbadii timirtii sidaas isku soo noqdeen maasha Allah si fiican ay u soo jilacday timirtii caadiga biyaha u dhex gashay alaabtan cajiib lagama sheekeyn karo qofkii cabalay dareemi karo macaankeeda maasha Allah sidaan u sameyso haddana waxaa ku daraaya 2 xabo oo mooska ah ee ku darsanaya smoothie cabitaan oo waxaa kaaga soo baxay meesha oo nafaqaysan proteins badan ku siinayo caafimaadkaaga sare u qaadayo maasha Allah laf xanuun haddii aad qabtid xataa aad ku anfacaya laf xanuunku waa uga reesanaysaa sidoo kale dhabar xanuun dadka cabanaya haddii aad tahay si lamida hadda waxaa ku daraaya 4 qaando oo sokor ayaa ku darsanaya maadaama ay timir ku jirto sokortana aad ha uga badinin macaanka halii aad markaas jeceshahay ayaa ka dhigan kartaa qasab ma hala ku daray inaad ku dartid haddana waxaa ku darsanaya 3 qaando oo caano booro ah ayaa ku daraya caani aad markaas siistidna waa ku shiidan kartaa insha Allah kadibna waxaa ku darsanaya koob biyo ah si aad iskugu shiido maasha Allah alaabta meesha ka soo baxayso cajiib ah cabitaan smoothie ah aan inaba caadi ahayn haddii aad baratana lagama fujin doono cabitaankan haddii aad caato dhibsatay isticmaal oo cab insha Allah si aad u noqoto qof cayilan oo qurux badan caafimaad qabkiisana sare u qaada insha Allah makiinada hadda waa ku shiidaya markii aad soo shiiday cabitaanka sida quruxda badan oo igu soo baxay baraf waa ku soo daray danna waa kana cabitaanka sidaan oo ku soo baxay cajiib haddii aad naga daawanayso YouTube channelkeena fadlan subscribe saar sidoo kale muuqaalka like saar siina share garay oo la wadaag walaalahaaga kale haddii aad naga daawanayso YouTube channelkeena fadlan follow garay muuqaalkana like noo saar siina share garay oo la wadaag walaalahaaga si ay uga faa'iideystaan cabitaankan cajiibka ah oo aadka u macaan oo quruxda badan insha Allah waa ku maasantahay daawashada quruxda badan iyo mar walba sida iigu xiran tahay sidaas iyo nabadgelyo